أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وأنتم بخير. لما نحن إذن وذليه ولا لها inta nala socoto, inta na fiirsanayso, inta af Soomaaliga ku hadasho adduunka joogto, waxaan wada leenahay dhammaan kullu caamin wa antum bikhayr, sanad wanaagsan. Caawa ama maanta waxaan noo soo gashay sanadkii hijriga ahaa 1440 hijriya. waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa sanad khayraad, sanad barakaad, sanad nabadgelyo, sanad amni iyo amaan, sanad arzaaq waasic ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nooga dhigo. waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahad celinaynaa ilaahayna gaarsiiyey sanadkan cusub. waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahad celinaynaa in cimrigeenna uu noo gaarsiiyey in aan soo gaarno sanadkan ama 1440 sano mar laga soo wareegtay hijrada nabigiisii calayhi salaatu wassalaam, oo haddana uu fursad kalena siiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala in aan caabudno. sanadka cusub kolleyba saan u ognahay waa marti cusub, waa dharfi cusub, waa envelope cusub ama bashqad cusub oo nagala sugaaya inaan ka buuxino ama aan gelinno acmaasheenni ama waxa aan la imaan lahayn oo camalfal ah. marka waxaa loo baahan yahay qof walbo awalan inuu ku qaabilo martidan cusub towbadda ilaahay subxaanahu wa tacaala, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noqdo iyo isla xisaabtan. sayidina cumar bin khataab radiyallahu canhu saan u ognahay wuxuu dhihi jiray xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabu. xisaabtaas waa xisaab ama imtixaan la galaayo oo qofka asaga nafsadiisa uu isgelinaya imtixaankaas oo iska waraysanaya sanadkii soo dhaafay 12 bil oo bilihii khayraadka, bilihii barakaysnaa ay soo mareen. muxaram laga bilaabo bisha sako loo yaqaano maanta kow ah, iyo wixii ka dambeeyey bishii safar, bishii rabiicul awal oo dhalashada nabiga ahayd calayhi salaatu wassalaam, ilaa laga gaaro haddana bishii rajab, ilaa laga gaaro bishii shacbaan iyo leylat nisf min shacbaan, ilaa laga gaaro ramadaankii, ilaa laga gaaro leylatul qadarkii, ilaa laga gaaro ciiddii fitriga, ilaa laga gaaro bishii siditaal iyo bishii xijka ee haddana soo dhaaftay. sanad kaamil ah waxaan samaynay oo dhan, ha yaraadaan ama ha weynaadaano, way wada qoran yihiin fii kitaabin laa yadilu rabbii walaa yansa, kitaab aanan rabbigayga caza wajal uusan hilmaamaynin oona uu ka dhumaynin ayaa ay wax walba ku sajilan yihiin. maxaan qabannay, maxaan samaynay, cilaaqadeenna annaga ilaahay subxaanahu wa tacaala siday ahayd, annaga iyo nabigeena calayhi salatu wasalaam siday ahayd, annaga iyo kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala cilaaqadeena siday ahayd, annaga iyo khalqiga ilaahay subxaanahu wa tacaala cilaaqadeena say ahayd. waxaasoo dhanna iskagala xisaabtanno, oon dib aan u fiirino, aan muraajacayno, kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u toobakeenno. wixii aan ka saxi karnana waxaas aan ka saxno, wixii kalena ilaahay subxaanahu wa tacaala aan dembi dhaaf ka weydiisanno. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan u toobakaynayna. waxaan leenahay tubna ila allah, natuubu ila allah, natuubu ila allah, natuubu ila allah ayaan ku bilaabanaynaa sanadkeena cusub. ilaahay subxaanahu wa tacaala towbada asagaa aqbalid og, waxaan ka rajaynaynaa inuu towbadeenna aqbalo. kadib waxaan ku bilaabanaynaa haddana niyo wanaagsan in waxaan niyeysanaynaa sanadkan insha allahu tacaala sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jecel yahay, sida nabigeena calayhi salaatu wassalaam uu jecel yahay, waddada nabigeena calayhi salaatu wassalaam inaan ku soconno. bal haddana aan cahdiga jadiidinno, ballanqaadkii aan cusbaysinno, aan isku dayno inta tabarteenna ah insha allahu tacaala inaan ballanqaadkaas markaan aan ka soo baxno oo nafsaddii iyo shayddaanka iyo hawadana aanan raacin, oo insha allahu tacaala uu noo noqdo sanadkan 1440 sanad annaga noo marqaati kaco, uusan noqonin sanad naga marqaati kaco. wixii horena ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu naga dhaafo oo naga dhigo kuwa maalintooda ka fiican shalaydooda, kuwa beridoodana ka fiican maalintoodan. maalin walba cusub lagu siiyo
أما لا أساسية أنا قلنا أن لو ضسيو وفرصة عصب إلهي سبحانه وتعالى كو أقلاض إن دو خدمة ستدا مسلم تهي فرصة إلهي سبحانه وتعالى كو أقلاضي واي إناد مقع إلهي أتحستد إناد إلهي وجهي سأد استاكتد إناد شنتي وقت أتكتد إن إلهي رسولك سأد حستد إن آت عمل وناكسن أد لإماتد أو إلهي رسولك سرادك نقنا وحاسنا وحيكو أنصحي كران أما يكون دعي كران هرتكو قلبي سليم أين لا إماضه قلبك سليم كأ إرادة أما ربطانك أي يكون حرنتها وحاسونا محاد عي حتى هداد نييستد عملك وناكسن أو آذن لإيمان حسنة كامل أهل القرى هداد نييستد أو آذن لإيماتدنا طبعا حسن هذا القرى marka waxa la rabaa fursooyinka aad u badan oo aadna u fiican in laga faa'iideysto oo aan la hilmaamin aakhiru zaman in lagu jiro waqti aad u dhib badan in lagu jiro waqti aad inta badan dadka ay ilaahay ka fogaanayaan in lagu jiro oo la isku dayo dadka saalixiinta in la xiriiro dadka saalixiinta awan wanaagsan in lagu xirto maxaa dhacay ku xirashadooda ila jirkooda iyo jeclaantooda ayaa lagu badbaadaya aakhiru zaman fitanta aaday u badan tahay fitan aanan ooli jirin ama aanan jiri jirin ayaa maanta la arkaya sanad walbana sanadka dambe ka sii daran bal iskaba dhaafa ee maalin walbaba maalinta ku xigto ayay ka sii daran tahay ma min yawmin min ayaam ad-dunya illa walladhi yalihi asharru minhu si xadiidka uu ahaa ma jirto maalin maalmaha adduunyada ka mid ah ilaa maalinta ka dambayso ayaa ka shar badan idan haddayba saas xaaladda ay tahay qofka bani aadanka wuxuu isku dayayaa siduu ku badbaadi lahaa badbaadistaasna saan aan hore u sheegnay waxay ku imaanaysaa awalan qalbi saliim ah qalbigaas saliimka ana ka shaqayn u baahan yahay in la nadiifiyo ayuu u baahan yahay kadib wuxuu u baahan yahay sidii lagu hay lahaa ama lagu xafidi lahaa nadaafadiisaas taasna kuma xaasil noqonayso ilaa in lagu xirto dadka wanaagsan akhyaarta saalixiinta dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsanaya qasab maaha qof cimaamad u xiran tahay iyo qof qamiis sita keliya iyo qof shaal garbaha u saaran yahay keliya ma ahan qasab inuu ahaado wuxuu noqon karaa qof iska daciifa iska faqiira iska maskiina iska xamaalata iska ah laakiin qalbigiisa uu wanaagsan yahay carabkiisa iyo gacantiisana dadka ay ka magangalayaan ama ay ka nabadgalayaan intaas qofkii laga helo ayaa muslim ah sida nabiga calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay xadiidka almuslimu man salima annaas ama man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi muslim waxaa ah kan carabkiisa iyo gacantiisaba ay ka nabadgalaan dadka ama muslimiinta marka aan isku dayno carabkan gacantan si ay khalqiga ilaahay subxaana wa tacaala ugu nabadgeli lahaayeen maxaa dhacay carabkan waxaa lagu siiyey inaad ilaahay ku xustid inaad kitaabkan quraanka aad ku akhrisid laguma siinin inaad been ku sheegto laguma siinin inaad dadka isugu dirto laguma siinin inaad dadka xamato laguma siinin idan waxyaabahaas oo dhan ma la isku siinin idan aan iska ilaalino inta tabarteena ah in aan ka fogaano waxyaabaha loogu talagalin ilaan waxaan oo dhan inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaa'ika kana anhu mas'ula waxaan oo dhan waa la isweydiinayaa marka ilaahay su'aasha aakhira allahna mootiyo sanadkaana sanad khayraad allah nooga dhigo sanad nabadgelye ah dalkeenni iyo dalalka muslimiinta oo dhan iyo dalalka aan ku noolnahay iyo caalamka oo dhan insha allahu tacaala sanad nabadaad iyo sanad khayraad allah ugu dhigo intaas haddaan ka soo gudbo waxaan insha allahu tacaala haddana isxasuusinaynaa mar kale oo horeyna aan rajaynaya inaan kasoo duubnay cajalad kale sanadka cusub bisha uu ku bilowday oo bisha muxaram ah iyo waxyaabihii annaga naga quseeyo maxaa dhacay annaga ummad waxaan nahay ilaahay subxaanahu wa tacaala kownka iyo saacadaha kownka iyo calaamadihii kownka uu nala xiriiriyey aanan ahayn ummad oo munfasil ah ama ka go-an kownka inamaa kownkan annaga aan ku noolnahay waa la xiriirnaa bishii aan la xiriirnaa oo waxaan ku tirsannaa maalmaheenni waxaan ku tirsannaa taariikhdeenni waxaan ku tirsannaa bilaha khayraadka badan leh iyo acmaasha nagala rabo sida soonkoo kale sida xijkoo kale oo aanan ku ansixaynin ilaa bisha in la ogaado ma ahane kadaalika waxaan ku xirannahay qoraxdii waxaan ugu xirannahay si maalmaheenni aan u ogaan lahayn ayadana iyo waqtiyaabaheeni khaasatan
cibaadaadka ku tacalluqdo awqaadda sida salaadoo kale aan u ogaan lahayn xilligii salaadii ay tahay zakadiina bishii ayay ku xiran tahay xajka bishii ku xiran yahay soonka bishii ku xiran yahay salaadiina waxay ku xiran tahay ayadana qoraxdii idan qoraxdaas iyo dayaxaas ama bishaas oo ah laba calaamadaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ama laba aayadaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ka mid ah ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu naga dhigay dad ku xiran oo aanan ka go'neen dad aanan ka marneen dad la xiriira ee xisaabtii iyo macnaha iyo say wax u socdeenna ka warqabo litaclamuu cadada الsiniina walxisaab siduu ilaahay subxaanahu wa tacaala noo sheegayba idan waxaa loo baahaya ikhwaani alkiraam baaraka allahu fiikum in aan ogaano waxyaabaha nooga tacalluqo ama aan kala xiriiri karno nagala xiriira bisha muxaram iyo bilaha kale islaamka oo dhanba idan bishaan muxaram waa bisha sanadka islaamka ku bilowmayo waana bisha ugu horeysa sanadka islaamiga ah oo ayada nafteedana axdaad fara badan ama dhacdooyin fara badan taariikhda islaamka gudihiisa ku leh dhacdooyinkaas waxaa ka mid ah in bishaan muxaram tobankeedii nabiyullaahi muusa calayhi salaam ilaahay subxaanahu wa tacaala u badbaadiyey taariikhdaas taariikh ka horeysana culummadu way soo guuriyaan qaarkood waxaa ka mid ah maalintii markabkii nabi nuux ilaahay subxaanahu wa tacaala badbaadiyey maalintaas tobanaad inay tahay kadaalika inay tahay maalintaas tobanaad maalintii nabiyullaahi yuunus calayhi salaam ilaahay badbaadiyey kadaalika inay tahay maalintii saan usoo sheegnayba nabiyullaahi muusa calayhi salaam ilaahay ka badbaadiyey isaga iyo qowmkiisa fircoon kadaalika taariikhda islaamka laaxiqa ah waxay ku leedahay ayadana taariikh xeel dheer carabta naftoodii intaan islaamka u imaaninna taariikh xeel dheer ay ahayd tobanka bisha muxaram waxay ahayd maalintay kacbada ay macnaha kusuu cusub ay u geli jireen maalin agtooda mucadamka ah eena la soomi jiray jaahiliyadiiba ayuu ahaa kadibna taariikhda laaxiqa ah nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo wixii ka dambeeyey waa maalintii la dilay ama maalintii uu istishhaaday sayidina alimaam alxusein ibn caliy ibn abi aalib ibnu faatimata azahraa binti rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam sayidina alxusein nabiga wiilka awowgu u ahaa maalintii uu istishhaaday isaga iyo 72 naf oo familkiisa iyo asxaabtiisa ka mid ah karbala ciraaq maalintuu ku istishhaaday idan tawaariikhdaas oo dhan inaan xasuusanno wixii nooga tacalluqana aan macnaha aan isxasuusina insha allahu tacaala noo ballan ah hadda iyo wixii ka dambeeyo kadaalika waxaan rabnaa inaan isxasuusino maadaama bil xurmadle ay tahay afartii bil xurmadda lahayd kadaalika cibaadaadka in la badiyo dulmiga la iska ilaaliyo nafsada dulmiga nafsada la dulminayo ha noqoto ama dulmiga dadka kale la dulminayo ha noqoto dulmiga in la iska ilaaliyo dhiigga in la iska ilaaliyo carabka in la cishto saan hore usoo sheegnayba in cibaadaadkana la badiyo khusuusan soonka maxaa dhacay bilaha xurmadda leh bilaha aad soonka loo ammaanay waaye saan horeyba aan usoo sheegnay insha allahu tacaala waxaan rajaynaa kuwa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhigay markay qowlka maqlaan kiisa wanaagsan kuwa raaca ee nasiixada qaata inuu anagoo dhan ilaahay subxaana wa tacaala naga dhigo intaas waxaan ku xasuusinayay nafsadayda iyo nafsadihiina mar labaad waxaan idin leeyahay hambalyo kullu sana wa antum bikhayr kullu caamin wa antum bikhayr sanad wanaagsan waxaan idin leeyahay insha allahu tacaala 1440 sanad guul muslimiinta ilaahay usoo hoohiyo allah nooga dhigo sanad nabadgelyo ilaahay subxaana wa tacaala allah nooga dhigo dabka allah damiyo dabka meel walba ka shidan fitnada meel walba ka shidan ilaahay subxaana wa tacaala allah damiyo muslimiintana allah u gargaaro allah u naxariisto allahuma ya muxawil alxawli walaxwaal حول أحوالنا إلى أحسن الحال بفضلك يا كبير يا متعال وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وحاجرة دعاء أي أخرين جرين صالحين تي أنسو قارني إيو كو هاد الجوغو كوي كهر ريبا أو دعاء آخر السنة ليرا دعاء سنة مالنتو قدام بي سنة أي أخريان إيو دعاء أول السنة أو سنة مالنتو قهر ريس انتا سو حكي لي كرتين إن شاء الله تعالى انترنت كان واتكي لي كرتين بيج كيننا وانصور دقينا إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين